waxaan naarta dadka geliyo waxa u badan carabkaas u badan waliba xubinka taanka carabka ka sii khatarsan markuu khatarsan yahay ruuxu markuu yani kaba soo qaad naftiisa iyo shaytaan ay ku xambaarayso inuu zina galo waxay u baahan tahay muqaddimaad iyo tilaabooyin ka horeeya iyo dadaal ka horeeya wax badan bay u baahan tahay zinadu wax markaba iska imaan karta ma wax si fudud loo gali karo ma waa wax u baahan dadkii inay isarkaan يعني wax weeyaan maartay la soo hasaawo la soo ballamo sheeko dheer soo marto waqti qaadato marka kadib uu yimaada sida carabku khalad weyn markuu galayo uma baahna inuu muqaddimaad iyo tilaabooyin badan iyo waqti iyo inuu qaataba uma baahna in birqsi gudihiibu markuu ku galaya khalad aad ka soo waqsan kareenin oo aakhiradaada iyo adduunyadaada dhan way burburinay hal khalad oo adiga oo dhan ku tacab khasaarinayo waxba aan ka soo reebaynin carabku ilbiriqsi gudihiibu ku galaya saas daradeed baa waxa la yiraahdaa wax xubnaha xubinka ugu khatarsan way nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xubnaha bini aadamku markay waa bariistaan oo waagu u bariyo kulligood waxay la hadlayaan carabka markaas waxay leeyihiin warniyo adan kugu xidhanahay ilaahay nagaga baq ilaahay nooga cabso haddaad toosto oo hagaagtana waanu toosaynaa haddaad adigu halaysana annagiina halownay ee carabow ilaahay nooga baq bay odhanayaan xubnaha kale dhan markasta uu waagu bariyaba xubnihii kale waxay la hadlayaan carabka macnahana waxaa ku tusaya aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu taqullah waquluu qawlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum ilahay wuxuu subxaana wa tacaala alla ka baqa hadal wanaagsanna ku hadla hadal toosanna ku hadla haddaad ilaahayna ka baqdaan hadalkana hagaajisataan oo carabkiina kontarooshaan maxaad helaysaan yuslix lakum acmaalakum camaliyaalkiinu ilaahay idiin hagaajinaya lugihii waa hagaagayaan gacmihii waa hagaagayaan indhihii waa hagaagayaan xubnihii waa wada hagaagayaan ilaahay baa kuu hagaajinaya ilaahayna waa idiin dembi dhaafaya subxaana wa tacaala maxay ku imaan kartaa carabkiina inaad kontarooshaan ood ka adkaataan haddii carabka aad kontarooli weydo bimacnaa camalkaagii waa fasaadaya waxaad shaqaysatay waa fasaadaya meel xun buu kuu hogaaminaya xubnihii kaleeto wuu hallaynaya saas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah ruuxu inuu aada ugu baraarugsanaado khatarta uu leeyahay xubinkan khaasatan waa xubinka carabka saas daraaddeed baa culimadii salafka ridwaanullahi calayhim baa waxay dhihi jireen shay inta la xidho jeel la geliyo jeel oo xabis inta la geliyo lagu xidho waxaa ugu fiican carabka waxa kaloo dhan haddii la xidho xabiska waa ku xun yahay waa ku rafaado laakiin shay xabiska ku fiican waa carabka wey mar walba oo la xabiso oo la xidho isagu wuxuu ka qaadayaa wanaag mar kastoo ruuxa hadalkiisu bato marka koowaad horta qiimo dhac baa ku dhacay soomaad arag ruuxa hadalka badan xataa bulshadu ma qiimayso ruux hadalka badan xataa dadku ma qiimeeyaan waxaa la leeyahay markuu soo istaago hadal bilaaba war waa kii hadalka badnaa baa la leeyahay markay majlis intay soo fadhiisato haweentu ay damcado inay wax sheegto waxaa la leeyahay war waa tii warka badnayd ma agtay qiimo ma lihidba limaada lianna warkan aad bixinaysay hadalkan kaa baxayaay waa jawhar waay jawhartuna waxay u baahan tahay inaad in yar u tashiisho oo in yar aad u bixiso haddaad iska daldasho iska qiimaha marka dambe waayaysa hadalkaagu marka inuu kontaroolo yahay markaad ku hadlayso xikmad ku hadasho inta kale aad aamusnaato saas daraaddeed baa nabigeena wuxuu yidhi sal alay wasalam man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut buu nabi yuri sal alay wasalam ilaah iyo maalinta aakhira ma rumaysantihiin allah iyo maalinta aakhira ma rumaysantihiin shaki kuma sugan rumaysantihiin ruuxii ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan nabigu wuxuu yuri sal alay wasalam ama khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso waxay ku imaan kartaa shayga aad doonaysa inaad ku hadasho marka hore qalbigaagu ku soo dhacaya qalbiga markuu ku soo dhaco waxaa la doonayaa intuusan qalbiga ka soo bixin oo carabku uusan sheegin baa la doonayaa inaad shiisho in aad si fiican uga fiirsato inaad ka baaraan degto talow kelimadan aad doonaysa inaad ku hadasho maxaa khayr ku jira maxaa wanaaga ku jira maxay dhibaato keensan kartaa maxaa maslaxo ku jirta maxaa mafsado keeni kartaa markaad si fiican uga baaraan degto haddii markaa khayr ku jirana ku hadal hadduusan khayr ku jirin ka gaabso dadkuna waa ku qiimeynayaan
إلهي أكتي سنة قيمات كو يلانيسا ملائكة يا أخياتا أكتودنا قيمات كو يلانيسا هذا المركز كو هذا شان هذا الحكمة ذي سنبو عرب كاغو برنيه حديث وحا اللغوي النقد اللغوي عن تربقش اسكهذا والله الله هل يقول يستون مال على ماشي لصفر يستوى على اسكدل دلانتو وحقينا مليت غير كان واكو يسيان مركز دمbe غير كان dadkii macna wax weeyaan aad isku mid ka ahaydeen saaxiibadeen marka dambe ishooda xataa waa ka dhacaysa waxaan wax qiimo leh ma leeyahay ruuxu ka aamus badan yahay buu bulshada kaga qiimo badan yahay kana xikmad badan yahay saas daraadeed inuu aamuskaagu bato marka khayr ay tana ku hadasho markii arintu ay shar tahayna aad ka gabsato taas ayaa ruuxa bini aadamka adduunkana karaamo ku yeesha آخرنا إلهي أكتيس وناقيا كرامك غيشا ساس درادت بها نبي صلى الله عليه وسلم روحي الله إيمان أنت آخر الرميسل أما خيرها كوها الله أما هيسكا مصيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم عليه لا ولا عمد دوا لا ولا عمد أي رسول كان نقول لنا يا صلوات ربي وسلم عليه ما لها مركز خطرتها هالستا عربك ودتك الجلية وحكم ذا لا ولا الرماد هذا موضوع أنا كوساب سنة الرماد هو خطرتهم بكمت معيهن حنتا يبين أبواتك حنتم محيتهي نبي جينا قيحي أو شيء حن محيته نبي محمد صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة حن وحي تهميات قرنيسان مركزا وحي إذن الله ورسوله أعلم إلهي الرسول كيسايق أنا وحبك قرن مين حنت مركزا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حنت وحوي ذكرك أخاك بما يكره ولا الكائنات كشيكتو wax uu dhibsanayo oo uu karaahayanayo oo uu san jeclayn oo uu san rabin inaad ku sheegto ayaa xan abu nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga wala weydiyo waxa la rasuul ilaahay waxa aan ku sheegay haduu wax jira yahay oo uu ku sugan yahay ka waran nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxaad ku sheegayso haduu wax jira yahay waad xamatay waxaad ku sheegaysaa haduusan wax jira ahayn oo uusan jirina waad ku been abuuratay buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam bisada yaani ruuxi been baad ka sheegaysaa waxaan jirin baad dusha ka saaraysaa waa been abuurad midaas waa iftiraa wayna ka weyntahay xanta caadiga xantana waxa la yiraahdaa ruuxani waxaad ku sheegaysaa wuu yahay waxa tiri waa beenalay waxaa tiri waa isla wareegto meelahaasay wareegaysataa waxaa tiri waa faasiqad oo mid hagaagsan ma aha waxaa tiri waa sidaa waa kan iyo kan waxaasina waa jiraayo wayba tahayba xanta la sheegaya ee sharcadu ka hadlaysaba waa intaa aduu meel fog baa u dooninba waxay ku leeyihiin dadka qaarkood oo anugu maanaa xamanaya wax jiraan sheegaya wax jiraan ka hadlaya maxamba waxa jireed ka hadlaysaaba xan aba xantuma wata nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ruuxa wax uu ku sugan yahay inaad ku sheegto waa jaahil waa aqli yar yahay waa foolxu yahay waa beenaale waa sidan waxa weeyaan hadii uu saad aad sheegaysa uu yahayna waa xan saad sheegaysa hadaynan ahayn oo arintu ka gadisan tahayna waa been abuurad labadubana waa laba dambiyo halisa laakiin waa si kala daran yihiin oo waxa si daran been abuuradka ayaa si daran xanta wada ogsoontihiin ilaahay quraanka subhanahu wa ta'ala meesha uu istaajiyay wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala qaarkiin qaarka kale yeesan xamanin hays xamanina xumaantiina ha sheegina xumaantiina ha sheegina walaalka hadaad xumaan ka ogaato xataa walaasha hadaad xumaan ka ogaato u ceeb qari xataa ceebteeda inaad sii baadbaado sii daba gasho lama ogola dumarka qaar baa waxay leeyihiin ama ragga sidoo kale waxay leeyihiin markii wax soo gaadhaan oo hebla sidaas ay ogaad bal waan soo hubsan bay leedahay waan soo hubsan markaas wax bilaabaysa dabagal iyo soo waraysa iyo heblo u tagiyo warkaas la sheegay ma ku soo gaaray haddana bal heblo u tagona warka maxaad ka haysaa الله يقول سبحانه وتعالى ولا تجسسوا